muuqaalkan waxaan idinkugu sharxi doonaa sida loo badalo passwordka Windows 10. Markii laga badalayo passwordka Windows 10, sida caadada ah wuxuu aad kaga duwan yahay Windows 7 iyadoo ugu wacan tahay Windows 10 wuxuu la imaaday qeybo aad u cusub kuwaasi oo aad kaga duwan Windows 7kii ay Soomaalidu aadka u soo isticmaali jirtay. sidoo kale Windows 10 wuxuu wadaa functions ama markaasi goobo gaar ah oo ay markaasi kaga duwan yihiinba Windows-yadii hore ee u baxsheen shirkadda Microsoft. insha Allah waxaan bilaabi doonaa ugu horreyn in aan bedelo passwordka. markaan bedelayo passwordka waxaan hadda soo kicinayaa account-kayga. wuxuu ii leeyahay 4 xaraf password ka kooban. waxaan doonayaa in aan 6 ama 8 aan gaarsiiyo. kadib waxaan leeyahay submit ama enter. waxaan soo furayaa ugu horreyn markii la bedelayo passwordka Windows 10 waa in aad taqaanid goobihii Windows 7kii laga soo bedeli jiray passwordka. sida caadada ah Windows 7 markii la bedeli jiray waxa la kala jiray qayb la yiraahdo control panel, balse Windows 10 waxa sidoo kale la soo kali karaa qayb cusub oo ay ku soo dareen oo la yiraahdo settings. marka sida caadada ah control panel waa soo mari kartaa, settingsna waad mari kartaa. waxa aad inoogu dhow settings. waxaad soo furaysaa oo kaliya start button-ka, kadibna waxaad click ama left click ku leedahay settings. markii aynu doorano ama aynu soo furno waxaan dooranayaa ugu horreyn accounts. waxaa laga helayaa dhammaan account-kaagii, email haddii uu kugu xirnaa, haddii markaasi oo password ku lahaa, username-kaagii, wax oo dhan halkaas ayaad ka soo bedelaysaa. iyada ayaad waxaad ku leedahay left click. markii accounts uu ku soo furmo waxa soo bixi doona shaashad u gaar ah accounts. kadib waxaad ka dooranaysaa sign in option. kadib waxaad ka sii dooranaysaa pin. haddii aad pin dooratid sida caadada ah pin waxaa loo isticmaalaa mobilada EVC Plus-ka iyo waxyaalahaasi. pinku waa password aanan ku jirin wax xuruuf ah ama dhibco ah. iyagu sida caadada ah waa number oo keliya. password haddii lagu dhahana waxa uu ka kooban yahay xuruuf, dhibco iyo nambaraba. marka sida saxda ah waxa habboon badan adagna in la isticmaalo password. hadda password hore ayuu igu lahaa, keliya wuxuu ku leeyahay change. haddiisan hore u lahayn waxay halkani noqon doontaa add. marka waxaan ku leeyahay change, then wuxuu leeyahay current passwordka hadda passwordka aad leedahay geli. waxaan gelinayaa 4 xaraf passwordka ahaa. kadib waxaan leeyahay next. wuxuu leeyahay a new password soo geli, re-enter dib u soo geli, and then a password hint. password hint waa sharxi doonaa. waxaan soo gelinayaa passwordkayga cusub, then waan ku celinayaa. then kadib waxa waaye hintigan lagu sheegayo waa wax aad ku xasuusan kartid passwordkaada. then waxaan leeyahay school. kadib waxaan leeyahay next. after that finish markaan dhaho waxaa la bedeli doonaa passwordkaygii. although markii dambe aan soo kicin doono uu computerkaygu isbedeli doono passwordkiisa. waxaan tijaabinayaa log in aan saaro oo aan ku soo furo 4 pin ee hadaayi ii lahaa. waxaan leeyahay 4 aan gelinayaa. passwordkaasi waa incorrect. waxaan gelinayaa 6 xaraf aan gadaal kaga xiray. way noo furmay. insha Allah muuqaalka xigana waxaan idinkugu sharxi doonaa sida loo soo furto account-ka markaasi ka xiran computerkaaga
loona abuurto akoon u gaar ah qof labaad oo kula isticmaalayo kombiyuutarka.